koox wax magarata ah oo dantoodii noqotay kala firdhi Soomaali kala irdhe Soomaali isku dir Soomaali maaragtay kala dir sharci iyo dastuur midna ha ku dhaqmin horta dad wax magarata baa horta dalkii gacanta ku dhigay xildhibaan maalmihii la soo dhaafay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Sheekh Shariif waxa ay yimaadeen Garowe caasimada Puntland imaatinkooda iyo diidmadooda farqi inteedan ayay sameysay maxayse saameyn ku yeelan kartaa qorshahan Xasan wato ee wax ka bedelka dastuurka in wax kasta ay Xasan ka socon waayeen oo Xasan nabadii diiday oo Xasan wada hadalkii diiday xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil ku soo dhawaad warbaahinta Daljir xildhibaan marka koobaad waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo sida la wada ogsoon yahay Muqdisho ayaamahan dambe way qasan tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu rabaa inuu meel mariyo oo sameeyo dastuur cusub iyadoo ay qarka u saaran tahay in la gudbiyo marka koobaad arinta maxad faahfaahin naga siinaysaa waxaan rabaa arrimo badan oo qarsoon in aan shacabka Soomaaliyeed la wadaago inta damir Soomaaliyeed leh sida dalka loo maamulayo meesha dalka loo wado Xasan iyo kooxdiisa cidda ku shaqaysanaysa horta midaas aan rabaa inaan daaha ka rogo caaweyto runtii waa nasiib darro aad u weyn dalkan burburkii 91 kadib sida loo isu soo celiyay ama qof xilligii Soomaaliya ay burburkaas u dhacay 91 qof markaa joogay marna isma oran Soomaaliya dib isugu soo noqonaysa ama dawlad Soomaaliyeed baa la dhisayaa ama xamar baa caasimad danba noqonaysa horta qofna maskaxiisa kuma fikirin wixii dhacay xilligaas nasiib wanaag dad Soomaaliyeed oo madax ahaa oo rag iyo dumar leh 15 sano geed gaaban iyo geed kore waxay u fuuleen dalkan iyo dadkan sidii la isugu soo celin lahaa waana ku guuleysteen hadday ku guuleysteen oo dawladnimadii la keenay waxa ka faa'iideystay koox wax magarata ah oo dantoodii noqotay kala firdhi Soomaali kala irdhe Soomaali isku dir Soomaali maaragtay kala dir sharci iyo dastuur midna ha ku dhaqmin horta dad wax magarata baa horta dalkii gacanta ku dhigay waad u jeedaan maantay meeshii dalkan kasoo bilow carta ilaa imbagaati wixii la soo maray maalinba malakeenayay dawladnimadii quruxda badan la soo waday in kooxdaas wax magaratada ah oo aan sheegayo oo isbahaystay oo dawladda gadaal ka riixayaan in ay maanta ku haminayaan dastuur kala jeeda oo 100 waji leh oo anagu dantayda aan ka dhaxaragnay oo aanu dalka saan doon u maamulayna aanu samaysano horta waa nasiib darro aad u weyn waxaa la helay xildhibaano meelay u fakarayaan iyo meelay ka fakarayaan aan la aqoon oo ka fakaraya jeebkooda iyo danahooda ka fakaraya haddii dastuurkaanu runtii waa dastuur wuxuu u muuqdaa Soomaaliya kala diraya oo kala irdeynaya oo ay adag tahay tala xumada iyo hoggaan xumada Xasan iyo kooxdiisa aan anigu u aqaano kooxda diiratada aan u aqaano ama kooxda firbiso oo dalkii kala firdinaysa haddii ay ku adkaystaan wadada ay ku socdaan oo aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayna arinta maanta ka diidin oo ayna ka digtoodaan oo aan laga fiirsanin Soomaaliya in meel fog laga soo celin doono oo ay u kala qaybsami doonto afarta jiho qaybeeda u kala qaybsami doonto oo adkaanayso Soomaaliya si dib loo isugu soo cesho ay adkaanayso marka waxaan leeyahay dastuurkan war dadka dabada ka riixaya iyo dawladaha ka riixaya waliba aan carabaabe dawladda dabada ka riixaysa oo dhaqaalaha ku bixinaysa oo wax walba ka shaqeynaysa waa dawladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo asagu aan rabin Soomaaliya nabad inay ka dhacdo ama Soomaaliya oo Soomaaliyeed ahaan jirtay ku soo noqoto ba Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu helay koox garab rarata ah oo dantoodii ka arkay talada gurracan Ismaaciil Cumar Geelle u yeerinayo Ismaaciil Cumar Geelle muhiimadda ugu jirta qorshahan uu dabada ka riixayo hadii ay hirgasho maxay tahay dadka horta Ismaaciil Cumar Geelle dabadan wuxuu ka riixayo waxa ugu hirgalaya waxa weeye wuxuu rabaa caalamku wax badan wuxuu ka dhaadashay oo caalamka wax badan ka gaday Soomaaliya aniga iga dambeeyay ana Soomaali ah ana isku soo celinaya ana isu keenaya taasna caalamku markuu ka diiday wuxuu go'aan gaaray in uu Soomaaliya kala firdhiyo oo haddana wuxuu helay koox firdhisan leeyahay firdhiso oo dalkii iyo dadkii iyo sharcigii iyo dastuurkii firdhiso gacanta ku helay kooxahaas markuu helay wuxuu maskaxiisa ka dhaadhiciyay oo ku jirta caalamku waa ku soo hoyanaya oo waxa lagu oran doonaa war oday Soomaaliyeed baa tahay taladaadii hore waan diidnay aanu dib kugu soo noqonay Soomaali isu keen oo dhaxgal horta Ismaaciil Cumar Geelle taasa ka dhex guuxaysa maskaxiisa ku jirta arrimahan hadda socdana
xasan waad ogeydeen 2012 ilaa 2016 kii u dambeysay inuu yiri qabiyo ninkeeda dhameystira barnaamijkan hadda ay wadaan dastuurka la burburinayo iyo kala irdeynta Soomaalida iyo dawladnimada Soomaaliya la firdhinayo iyo dastuur iyo sharci lagu ciyaarayo waagaasa kaartada hadda socota Ismaaciil Cumar Geelle soo dajiyay kaartada hadda socotana waxaa dib loo soo cusboonayay 2024 kii January 28 kii markii Xasan wafti ka haystay oo Muuse Biixi loo yeeray oo Djibouti la isugu tagay heshiiskii la saxiixay kaasoo ahaa qorshihii markaa la watay oo hadda ay ku socdaan oo guracnaa oo runtii ka fog Soomaalinimada ka fog oo dawladnimada ka fog oo siyaasadda Soomaaliya ka fog oo qabyaalad salkeed ururtay ba hadda Xasan wuxuu la taagan yahay barnaamijkii aanu halka waagaagayna wacyigelinta oo aanu la nimid oo aanu rabnay inaan wadno waxa dhabarka naga jibiyay Muuse Biixi baa dhabarka naga jibiyay marka barnaamijka la wada barnaamij soo taxnaa 2016 ilaa soo taxnaayo hadda si fiican loo dhameystirayo way maxaad kala faahfaahin naga siin kartaa isaga Xasan Sheekh Maxamuud muhiimadda iyo ujeedada dhabta uu ka leeyahay dastuurka inuu bedelo muhiimadda dhabta iyo dastuurka horta ku leeyahay waad ogeydeen sanadkii hore markii macawislaydu ay la dagaalamayeen nimankan khawaarijta oo baladweyne waad ogeydeen Sambaloshan ninka lagu magacaabo meel fagaara dad uga khudbaynayay inuu yiri hawiye wax uu caaqibaa leeyahay malahan dadnimo malahan wanaag malahan war 91 soo aynagu dadka idaarood kamayna adkaan soo wadanka kamayna saarin haaba dadkii yiri dadkii aan wadanka ka saarnay oo wadanka aan ka saarnaa dib inta noogu soo noqday sharci noo sameeyay oo dastuur noo sameeyay oo maamulaya miyaan hawiye yuusan maqnayn horta ereyga Xasan iyo hawsho dib loo soo cusboonaysiin waa ereygaas shirki waxaan rabaa dadka inaan si fiican wax ugu qeexo anigu inaan wax qarshe ma jecli dadka wax qarsheen ma ahi dadkuna waxay runtii aad ugu naceen war maxaad wax badaaha uga rogtaa runtii dadkan koonfurta degan dad Soomaaliyeed oo fara badan oo 80% qiimo leh oo ka fog qabyaalada iyo muxuu ahaa isku dirka Xasan wado oo Soomaali jecel weeyo Soomaalinimo jecel oo dawladnimo jecel laakiin Xasan iyo Ismaaciil Cumar Geelle waxay gacanta ku dhigeen intii u tayada xumayd oo u liidatay oo qabyaaladu lafaha ka gashay shirkan maadaama hadda socdaa wax badan socday waxa la soo cusboonay adogeydeen Xasan yiri tala qabyad ninkeeda dhameystir uu waday maantay gacanta ku hayaan bishii January 2024 28 January la isugu tagay oo Muuse Biixi iyo waftigii Xasan watay Ismaaciil Cumar Geelle arrintii baa dib loo soo cusboonaysiiyay waxa la iska dhaadhacshay oo maskaxdooda la gashay waad ogeydeen muddo inay socotay wax ay koox yar ku hadaaqaysay wax la yiraahdo Soomaali ku hadaaqaysay tiiba la soo cusboonaysiiyay Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu yiri aniga shaqo mid ii dira idinkuna gudihii Xasanow iyo tiimkiina ka dhaadhiciya dadkii wixii idin yeeri kara iyo xildhibaanada ka dhaadhiciya arrintaas oo ah Ismaaciil Cumar Geelle inuu qaatay oo yiri waxaan caalamka ka dhaadhicinayaa koonfurta Soomaaliya ka bilow koonfurta gaalkacyo ka bilow ilaa Raas Kaandooni waxa ayagu markaa ay ugu yeereen Soomaali iyo Digil iyo Mirifle qabaa'ilka la yiraahdo degan baan caalamka ka dhaadhicinayaa dadka ku hoos nool oo magaca daaroodka haysto oo ku hoos noolna waa dad tayo aad u yartahay oo minority yara oo annaga taladayada iyo waxaan u yeerina qaato nagu dhexnool awood iyo dhulna midna ma lahan arrintaas ana caalamka ka dhaadhacsiinaya idina gudaha gala runtii waa nasiib darro aad u weyn in Soomaaliya maantay koox yar u kala qaybiso oo qabiil u abaabusho horta waa nasiib darro aad u weyn saddexdii wiigo hadda u dambeysay oo Xasan madaxtooyada xildhibaanada ugu yeerayay qabaa'ilka waxaan ka ahayn qabaa'ilka beesha daarood aan ka ahayn qabaa'ilada kale oo afurka u sameynayay waxyaabihii oo ku xodxodanayay oo ku shukaaminayay oo laha dastuurka inoo ansixiyo waxay ahayd arrintaanu ka dhaadhacshay oo ay war koonfurta gaalkacyo ilaa Raas Kaandooni waxa degan qabaa'ilkan la yiraahdo lagu magacaabo Soomaali iyo Digil iyo Mirifle dadka ina ku hoos nool oo daaroodka ana waa dad anagu maaragtay nala nool oo nagu dhex jiro oo aan wax tayo lahayn oo aan deegaan lahayn oo meeshaan wax u yeerino iyo mataladan nala qaadanaya arrintaas aan rabnaa inaad xildhibaanada ka gadaan oo aad ka shaqeysaan oo dastuurkan saasaan ugu bedelay oo dastuur waxaan rabnaa dadkaas aan magacaabo qabaa'ilkaas ay iska leeyihiin
dadka qaylqaylinaya oo dastuurku ka socon waayo oo dowladnimadu ka socon weydayna waa dad yar oo ku aftirsaday deegaanada Puntland ka soo jeeda oo waqooyiga gaalkacyo ilaa boosaaso meelahaas isaga nool oo dad yar oo boqolkiiba aan 20 dhamayn waxa qaylinaya horta ninka sidaas dadka xildhibaanada u qaybinaya oo xildhibaanadii heerka kala gaarsiiyay oo qabyaaladu heerka ka gaartay oo helay koox yar oo xataa dadka ay ka soo jeedaan aan matarin baa Soomaaliya leh dastuur noocaas aan u sameeynaa oo qabyaaladu heerka lafaha ka gaartay arrintan runtii aan hadda sharaxayana arrin qarsoon horta markii hore ma ayna waad ogeydeen ololihii koox yar xamar ay ka wadayo ilaa Hargeysa la tagay waad ogeydeen oo waad la socoteen arrintan hadda ka dhacay meesha Djibouti ka dhacay iyo arrintan hadda xamar xasan ka wado oo xildhibaanada u martiqaadayo u yeerayana nin xildhibaana oo runtii goobjoog ka ahaa shirarkii u dambeeyay Afrika loo sameeyay oo iga codsaday inaan magaciisa la carabaabin oo ka gubtay يعني ضمير حمد حسن كل ما هي أنا أرنك إيش يجي أو يرى عبد برو نوح قرية متهم نوح عطيه مواد صومالية نوح عطيه واحد بدن قيحة أرنتاس إن هذا قرحيسيد أو أمد أسو بندكتيد بان ربنا لكن ما عيقها عربابين مركورت أرنت وأرن سيدا صحو هي وحو كرو يقدري أو أصنع أرنتا ميشا أو حلدبان كاسو عديي qolada khaatuma waxa SSC waxa lagu xidxutay xildhibaanadooda labada aqal waxa lagu shukaamiyay hawshaanu markay noo dhamaato waxaan idin aqoonsanaynaa state of SSC khaatumaan idin aqoonsanaynaa waxa idin hortaagan oo maamulkiina hortaagan oo dhibaato idinku hayana waa maamulka Puntland ayagiina sidaas lagu xidxudanayaa qabaa'ilada daaroodka oo hadda la socdana ayana waxa lagu shukaamiyaa oo lagu xidxudanayaa oo maskaxda lagu sheega wasiirka arrimaha dibadda la idin siinaya wasiirka amniga ama la idin siinaya nin walba waxba dhigtar loogu sheegay xildhibaanada beesha daarood ayagii dhan baa maqan oo ordahayo nin walba horta wasiirka arrimaha dibadda yuu deeqayaa buu yiri wasiirka amnigu yuu deeqayaa qolo walba qabaa'ilka kale qolo walba wuxuu dhigtar ugu sheegay madaxweyne ku xigeenka ay siinaya qolo walba dhigtar ugu sheegay markii dadkii waxaad moodaa Soomaalida inay hurdo oo waxa xasan wado iyo kooxdan muxuu ahaa ay isbahaysteen oo groupka ah oo aan Soomaali matalin oo aan qabiil matalin waxyaabaha daciifka ah oo xun oo danta gaarka ah baa dadkii lagu abaabulay marka hadee arrinta socoto waa arrintaas Soomaali ha ogaato Soomaalidu meel ay joogtana damiirkoodu inta shaqeeyo waxa xasan dalka ku maamulaya iyo kooxdiisu waa inay iska qabtaan maanta waxa idin kula hadlayaa waa xaqiiq dhaba oo jirta oo Xasan Ismaaciil Umar Geeli iyo inta yaro ku hareeraysan ay wadaan oo muxuu ahaa dhibaatada wadaan inta ku hareeraysan waa intii ayna ku hadaaqi jirtay dawladii farmaajo markii loo kacsanaa 91 baa lagu laabanaya ku hadaaqi jirtay dadka noocaas oo qabyaaladu lafaha ka gashay oo heer ka gaaray baa maanta waxay rabaan Soomaali inay si kala qaybiyaan oo kala irdeeyaan marka aqoonyahanka Soomaaliyeed wuxuu ku socday aqoonyahanka Soomaaliyeed qof kasta oo damiir Soomaaliyeed leh qof kasta oo dawladnimo Soomaaliyeed ka naxaya arrintaas in laga hortago waan ogahay waraysigan markii la dhageysto dad badan in dhiigu ku karahayo in badan oo muxuu ahaa dawladnimada Soomaaliya jecel ama isku xirka ummadda Soomaaliya jecel inay ku farxayaan inta xun oo arrintan ka shaqeynaysa markay maqlaana inay wajiyo kale u bedelayaan oo maaragtay dhiigu ku karahayo oo dib badan ku dhacayna waan aaminsanahay marka intaas weeye inta ugu muhiimsan oo aan rabo maanta ummadda Soomaaliyeed inaan u iftiimiyo oo laga digtoonaado xildhibaan maalmihii la soo dhaafay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Sheekh Shariif waxa ay yimaadeen Garowe caasimada Puntland imaatinkooda iyo diidmadooda farqi inteedan ayay sameysay maxay se saameyn ku yeelan kartaa qorshahan Xasan wato ee wax ka bedelka dastuurka horta runtii labada madaxweyne oo waxa ka muuqatay ka danqasho qaran baa ka muuqatay ka danqasho ay shacabka Soomaaliyeed inaan la isku dirin oo la kala irdeyn baa ka muuqatay wadaniyad Soomaaliyeed baa ka muuqatay arrimaha ay Puntland u tageen ma ahayn war murtiyeed in ayaga iyo Puntland soo wada saaraan arrimaha ay u tageen oo u muhiimsaneed waxa weeye maadaama shirkii caleemasaarkii ay arrimo u gaara ay uga baaqdeen oo ay Puntland ka ballan qaadeen inay imaanayaan waqtigu markuu u masaabaxo horta qodobka koowaad kaas uu ahaa labo qodobka labaad ayana ay u tageen waxay ahayd inay shacabka Soomaaliyeed iyo khaasatan reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed meel u joogo iyo caalamka ay u cadeeyaan
waantii la waday iyo wixii la rabay in la isu soo dhaweeyo Puntland iyo dawladda federaalka oo Puntland noo qoordhiibatay in wax kasta ay xasan ka socon waayeen oo xasan nabadii diiday oo xasan wada hadalkii diiday oo xasan diiday dastuurkii inuu cid kala hadla diiday oo uu noqday kaligiis oo arrimaha hadda aan ka hadlay ay aasaas iyo saldhig u tahay horta madaxweynayaashu arrintaas u tageen bareerahoodina waa dhiibteen haddana shaqay wadaan ayaga kaliya ma ahane mas'uuliyiin badan oo runtii wadaniyad Soomaaliyeed gubayso oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda ba ayaguna dadaal badan waxay ugu jiraan inay ka hortagaan waxaan xasan wada inayna socon oo Soomaali ay isu keenaan waad aragtay rag badan oo maalin kasta hadlaya waa aragteen oo dadka koonfurta ka soo jeeda Soomaaliyeed oo xildhibaanalaho ra'iisul wasaarayaal soo marayo mas'uuliyiin hore soo marayo ganacsatada ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya sida ay uga gubanayaan ama uga dhiidiyeen talo xumada iyo hoggaan xumada iyo maamul xumada iyo ku tumashada sharciga xasan iyo kooxdiisu ay Soomaaliya ku maamulhayaan oo ka soo horjeeda waad aragteen marka dad Soomaaliyeed runtii waxaad moodaa in muuqatay inay nool yihiin dad Soomaaliyeed oo damiirkii ku haray oo ka gubanayo talo xumada iyo hoggaan xumada iyo khiyaanada xasan sheekh iyo kooxdiisa Ismaaciil Cumar Gelle dibindaabyada ay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliya ay ku wadaan waxa ay muuqato oo aniga hididila fiican gelinaysa inay muuqdaan dad badan oo Soomaaliyeed oo qabaa'ilka Soomaaliyeed ka kooban oo ka xun oo ka gubanaya xaaladda Soomaaliya maanta ay yeelatay ama wajiga cusub ay yeelatay inay uga digaan nimankan xildhibaanada oo sida xun loo khaldayo qabiilka lagu khalday oo aan aqoon lahayn dadka Soomaaliyeed oo sida xun wax loogu turjumayo waad ogeydeen banaanbixi shalay waad ogeydeen ardadii jaamacadaha iyo iskuulaadka ee banaanka loo soo saaray iyo shaqaalihii gobolka Banaadir waxay ku hadlayeen waad ogeyd caasimada waana la ku dulleeyahay annaga saas ah ee xasan baa dastuurka iskale media la soo taagnaa wax qarsoon hadee ma ahayn marka waa dadka yar oo nooca u fakaraya oo xasan si xun wax ugu sheegay oo xasan maaragtay talada xun ka dhaadhashay weeye ma ahane waxaan anigu aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba 80 ama 90 meel kasto ay joogaan inay ka xun yihiin tala xumada iyo hoggaan xumada iyo kala qoqobka iyo xasan dalkan meeshu iyo dawladnimadiisa u wado dadka Soomaaliyeed boqolkiiba 90 in ka badan waxay aaminsan yihiin taladaas bay aaminsan yihiin xasan dalka inuu meel xun ku wado xildhibaan dawlad goboleedyada kale ma jiraan Puntland cid ku wehelisa wax ka bedelka dastuurka ee diidmada wallahi Puntland uma baana maamul goboleed inay markaan maaragtay hoosta ka gasho barkee maamul goboleed aan tayo lahayn oo asagoo dhan bal la biiro oo gacanta lagu hayo waqtigoodina dhow yahay oo wax nin walba wax qiibla yar uga hareen oo haday yiraahdaan waxaan waa khaldan marka hore ayaga raalli uga noqday oo xasan waxaan ku booriyay in sharciga dastuurka lagu tunto in madaxweyne ku xigeen la keeno in waxaas oo dhan la sameeyo ra'iisul wasaare ayagoo markaa ka arkay dantooda oo xasan ugu sheekeeyay hal sano idin ku daray ugu sheekeeyay kama ay hadli karaan Puntland dadka noocaasa maamulada noocaas oo ayagu noqdo gabigoodaba bishii la siiyo 150 biila haddana haday madaxa taagaan maxaa laga takhalusayo ama mucaaradnimo lagu aasaasayo ama mid kale oo maaragtay kursiga looga tuurayo lagu keenayo taasay isaga aamuseen oo dantii qarankan Soomaaliyeed iyo dawladnimadan la burburinayo iyo sharciga lagu tumanayo iyo dawladnimada la kala reebay waxay ka doorbideen haddaad xasan tiraadaan waxaanad khaldan waxaana lixsan oo wuxuu rabo aydan u samayn inuu xoogaaga biilkaana ka goonsanayo ka bacdina maaragtay mucaarad ku kicinayo oo ninkii bedel lahaa ka horkeenayo waxaasay horta meesha ugu socdaan oo dantooday meesha ka arkeen laakiin xasan waxa uu qorsheysan dantaanu markay u fusho oo dantiisa uu ka dhamaysto nin walba ninkii uu waday inuu ka kacsho oo nin walba nin buu ku kacsho qabaa'ilka maamul goboleeda qolaba koox buu wataa leeyahay markii waxaan aad nooxaysan baan madaxweyne idin ka dhigayaa hebel idin ku bedelaya waxaas oo dhan baa lagu bedeshay oo been abuurka oo aan meel jirin marka dadka noocaas oo hadda tala kasta la gashid aan fulinayn Puntland inay isku khasaaraysan maahan Puntland Soomaali waa ogtahay adduunkana waa og yahay inay tahay baawarka koobaad oo Soomaaliya inuu yahay maamul goboleed inay tahay dawladda federaalka oo lagu ciyaarayo maaragtay lagu tumanayo si doono loo magaciisanayo sharci aan la ixtiraamayno wax walba la sameeyo waas adduunkuna waa og yahay Soomaalina waa ogtahay Puntland baa keentay filla Soomaaliya laga qustay Soomaaliya kale irdowday cidda keentay dawladnimadan maanta lagu ciyaarayo oo lagu burburinayo haday Puntland baa keentay Puntland inay maanta Soomaaliya ka gubato oo dawladnimadii ka gubato oo tasfiirku ka gubato dan gaar ayada oo ah maahan
dan ay leedahay ma ahan waxay ogtahay dalkan sida la isugu keenay waxa Puntland ogtahay sida sharcigan dastuurkan wada jir Soomaali u samaysatay dawladnimadan sidii lagu soo ceshay wixii lagu heshiiyay waxa soo dhan baa gubaysa laakiin Puntland maanta uma jabna inay inta banaanka istaagto qodobadeeda dastuurka u masaabaxaya ilaa la helo dawlad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo qaranimo oo uma la helo inay Puntland halka istaagto oo Soomaali isu timaado oo Soomaali dib u tashato ilaa la helo waxba ugama jabna laakiin damiirkeeda wuxuu siin waayay inay heer ka gaarto waqtigan xaadirka ilaa xad inay waxaan maaragtay raadiso dabadal ku samayso dhiriso ee Soomaali tusto caalamka tusto de marka u dambayso xal laga waayo oo la arko wadankii meel haadaan oo qalabada in loo wado de Puntland inay go'aan cad qaato iyadoo ay qaataan oo banaanka istaagaan de dantaaba waaba imaan doontaaba marka dalkaanu meel xun oo runtii fog oo khataruhu ku socda arintaas xildhibaano iyo cid kasta waxaan leeyahay war maanta waxa muuqda ha fiirinay bari waxa imaan doona fiirsha war jiilka dambe iyo mustaqbalka dambe fiirsha war maanta xildhibaano ma joogi doontaan meeshaan war wasiir ma joogi kartaan war mid magac ra'iisul wasaare wato lagu qaraabanayo ma joogi kartaan ma joogi doontaan war maanta taariikh xumo dalkaan horseedina war magac xumaha u soo horseedina war waxa koox yar oo danaystayaal iyo Ismaaciil Cumar Geel idinka dabahayaan oo aydan hoos uga warqabin ha ku khaldamina war Soomaali baa deeqda war dawladnimo deeqda war qaran baa deeqa war Soomaaliya adduunka waxaad arki doontaan sida lagu socdo hadii maanta lagu socdo waxa imaan doonta beesha caalamku inay tiraahdo Soomaaliya intaan ka badan uma dulqaadan karno dawladnimada uma diyaarsana ku meel gaar in lagu cesho oo leeyahay intuu dib ha ku xukunto oo wadankan dib loola wareego taasa miiska qarka u saaran waana waxa Ismaaciil Cumar Geel ka talinayo in aan Soomaaliya isu imaan in aan dawlad weyn oo xooggan Soomaaliya ka imaan oo uu u adeegsanaya kooxahan wax magaratada ah oo madaxweyne Xasan horboodayo oo talal horboodayo arrimahaas oo dhan in laga fiirsado oo laga digtoonaado khatarteed baa fiican oo khatarteeda leh xildhibaan maalmihii la soo dhaafay waxa jirtay xildhibaano ka soo horjeeday wax ka bedelka dastuurka federaalka Soomaaliya oo shir ku lahaa hotel SYL inay al-shabaab soo weerartay goobtaas maxaa keenay in al-shabaab madaxtooyada Soomaaliya aageeda ka dagaalanto maxaa ka dhaxaya aragna dawladda federaalka iyo al-shabaab maxaa iska galay dastuurka wax ka bedelkiisa ee al-shabaab inay la dagaalanto cid ka soo horjeeda dastuurka wax ka bedelkeeda horta waxaan rabaa dadka inaan gadaal u cesho 2016 xildhibaanka ahaa waxaana la ka dilay 19 xildhibaan oo raggii ugu cadcada ugu muhiimsanaa oo ugu waayo aragsanaa la ka dilay halka waxaad ka garanaysaa in wax badan Xasan Sheekh iyo tiimkiisu ay ka khaldan yihiin oo xiriir hoose jiro halkaasaad ka garanaysaa 19 ka xildhibaanna hal qof oo loo soo qabtay cid loo soo qabtay ma jirin maxaa yeelay dalkii waxa lagu naasnuujiyaa hay'adihii amniga dad aan aqoon u lahayn dad aan waayo arag ahayn dad aan muxuu ciidamada aqoon u lahayn si dalkan indhaha loogu rido oo indhaha loogu qabto midda hadda ka dhacday SYL ka dhacday waxa ka horeysay hotel Hayat wixii ka dhacay baa 2022 bishii 8 wixii ka dhacay waad ogeydeen hotel Phil Ross oo ku dhagsan madaxtooyada qarkeeda oo saano kala shir u socday wixii ka dhacay waad ogeydeen oo lagu baxshay dhaqaale badan lagu baxshay oo labada hotel ilaa hadda hal qof wixii galay aan lagu dilin hadda adeer waxa weeye dadka noocaas weeye dadka meesha madaxda ka ah oo hay'adihii amniga aan aqoon u lahayn oo sirdoonkii aan aqoon u lahayn oo militariga xataa aan aqoon u lahayn oo booliiskii loo dhiibayo dad aan aqoon u lahayn khibradda booliiska loogu dhiibayo saaxiibtinimo iyo kanaaxyo loo bangareeyay oo wiil yar oo weligii askari arag general laga dhigayo taariikhda ma dhicin Soomaaliya ka hor oo aan weligii xataa urug hogaamin karin arrimahaas oo dhan baa isbiirsaday waad ogtihiin waxa leedahay maxaa ka dhaxeeya waad ogtihiin inta saraakiisha iyo ciidamada la dilayo maxaa loo dilayaa maxaa ciidamada haman inta loo soo dhubtay dukundaako looga dhigayaa waxa ku dhex jira ciidamada waxa ka buuxa al-shabaab baa ka buuxa oo ka dhex buuxa saraakiisha bay ku jiraan wasiiradii bay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigu muxuu yahay soo ninkii shabaab u bixiyeen ma doob iyo bilaadan u bixiyeen Soomaa markay soo ummadda u leyn jiray muxtaar roobo muxuu yahay aad ogtihiin wixii uu ku dhigsan jiray iyo afayeenka u ahaa wasiirka caafimaadka kamida taliyaal ciidan baa ka buuxa
adeer waddankaanu waxa weeye nimanka banaanka lagala dagaalamaya waa iska dhoolatus maahani gudihii bay ka buuxaan ciidamadii bay ka buuxaan baarlamaankii bay ka buuxaan golihii wasiiraday ka buuxaan cid walbana waa ogtahay marka waddankan khatarta asagoo ku sugan oo heerka maraya baa haddana waxaa waddankii lagu wareerinayaa oo xasan ugu weyn fashilka kaga yimid la dagaalanka shabaab baa la dagaalamayaa fashilka ka yimid oo ciidamadii dawladda cagta la marshay oo hubkii dawladda laga urursaday waxaas wuxuu shacabka Soomaaliyeed indhooda ka jeedinayaa oo leeyahay muxuu ahaa si aan waxa loogu qabsan aaway ciidamadii la soo tababaray aaway hubkii kii u dambeeyay waad ogeydeen daraatiiko wixii markaa ka dhacay u dambeysay waad ogeydeen waxa galmudug ka dhacay waa la socotaan marka waddankan gacantu ka sii baxaya khatar buu ku sugan yahay meel xun buu maraya waxaynu ka hadlaynaa wax yaro maynaraanu ka hadlaynaa war dadka Soomaaliyeed oo istaaga war dadka Soomaaliyeed oo damiir yeesha war dadka Soomaaliyeed oo xasan iyo kooxiisa iska qabta war waxaan yaan lagu fiirsanin war maanta maalin baa wax badan oo maaragtay aan maanta sheegay wadanba lagu baraarigi doona dalkan meel khatar oo aan laga soo celin doonin buu u socdaa kama dambeystii xildhibaan iyadoo aan loo dhanayn wax ka bedelka dastuurka oo ay Puntland ka maqan tahay lacalla hadii ay dhacdo xasan sheekh maxamuud inuu baarlamaankiisa horgeeyo oo ay ansixiyaan waxay noqon kartaa ama ay ku dambeynaysaa xaaladdu adeer maamul goboleedyada Puntland ma ahane dad badan oo siyaasiyiin Soomaaliyeed saan sheegay oo koonfurta ka soo jeeda arrintan ka xun oo ka soo jeeda xasan hadii baarlamaanka 20 qof u timaado nin uu ku shaqeysto sheekh aadan madoobe oo arrintii bay dhawaad ogeydeen waagi Cabdullaahi Saxsari wixii Cabdullaahi la dagaalamay oo dastuur waagaana qaribay wuxuu ahaa sheekh aadan madoobe lagu yaqaano dana khaasa wata oo bay dhawo caasimadii laga dhigi rabay diiday oo maaragtay dabarjibinta ku sameeyay horta ninkaas ay haystaan nin la yiraahdo sheekh aadan madoobe oo wixii qofka markaa xukunka jooga taladiisa qaadanaya oo aan ka fakarayn qadiyad iyo dawladnimo aan ka fakarayn arrintan hadii maanta la sameeyo oo sabtida hadii rabadna waxaan filayaa berrito in baarlamaanka la geenayo quladii ay bariyahan ka doodayeen oo qodobka koowaad ilaa cutubka koowaad iyo cutubka afraad in loo qaybinayo nimankan baarlamaanku sheega loo qaybinayo guddiga xasan samaysay oo guddiga maaragtay dib u eegista ama guddiga dastuurka lagu magacaabo iswatana ay meesha ka akhriyaan sabtidana gacanta u taagaan hadii xataa kooram ama kala jecla hadii baarlamaanku xataa 2 isu timaado 10 isu timaado sheekh Aalmadoobe waxa ka go'an dubaha inuu ku dhufto ilaa waa ansaxo 180 ama 200 baa ansixisay inuu inta dubaha ku dhufto horta waa ka go'an tahay taa waxa daliil u ah guddiyadan isku dhafka hadda shaqeeyo labada aqal oo leeyahay xeer hoosaadka laga shaqeeyo hadda ka hor la diiday baarlamaanku qaylinayo war waxaan sharci maahan waa tu inta dubaha ku dhiftay 184 baa codaysay iyadoo laga warqabin wax fadhiya iyo baarlamaankii buuqayo hadii halka waad ka garanaysaa sharci iyo dastuur inaan cidna la dhageysanayn cidna la magaciiseebayn guddoonkuna wuxuu ka shaqeysanayaa oo kaliya intaas u baahanaya jeebka ku soo shub oo loogu shubayo bangi baa lacag taay nin waxaan igu soo shub taariikhda ka hor sheekh aadan madoobe kama dhicin horena ugama dhicin maantana ugama dhicin waad ogeydeen kii kale ka dambeeyay oo la Turkiyan difaaciso beenbeenta ah dadka loogu sheekeeyay oo xasan iyo kooxdiisu ay la galeen maaragtay ganacsiga badda kalluunka in la xalufiyo dawladda Turkiga ay la galeen oo ay ugu sheekeeyeen amxaara Turkiga naga difaacaysa oo aan amxaara ka difaacin oo beenta ahayd in xasan maalin arbaca inta Turkiga heshiis la soo galay la yiri badda noo difaacaysaan maalinta arbacada khamiistina golaha wasiirada la fariisiyay shir degdegana baarlamaanka la isugu yeeray golaha wasiiraduna ay yiraahdeen muxuu arrinta waanu ansixino waanu qaadanay oo runtii yani sharci darro ahayd xasanna baarlamaanka inta hortagay yiri ansixiyo igu aamina waxaan oo caawa hadaad xildhibaan la doodid ama baarlamaan la doodid oo tira war maxaan ansixiseen qofku oran karo waxaasaan ansixinay horta dadka noocaas weeye dadka la leeyahay dastuur bay ansixinayaan iyo dastuur bay fadhiyaan waxayna aqoon gacanta u taagaya labada dhacdood baa u dambeysay tanna waxay noqonaysaa tii saddexaad waxa loo soo yeeriyay oo xasan qabiil qurun iyo baqti ugu yeeriyay inay gacanta ugu taagaan marka waxaasoo dhan markay sabtida dhacaan hadee go'aan markaasay u baahan tahay dadka siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada ka fikrad duwan waxaan ka dhiidiyay oo maaragtay ilaa hadda inta hadlahay iyo siyaasiyiinta hadlaysa iyo Puntland
markaas waxa u taal go'aan cad oo mowqif cad inay ka qaataan taasaynu sugaynaa haddii rabtaan midda imaan doontaa waa midaas